haddaan idin siiyo xaaladda guud meesha ay maraysa Soomaaliya coronavirus waxaa laga helay oo xaalad cusub la helay 46 qof 24 saac ugu dambeysay lab waxa ay 33 dhadigna waxa waaye 13 28 kamid ah dadka laga helay da'dooda waxay u dhaxaysaa 20 ilaa 30 jir taasoo u dhiganta 61% dadka laga helay 41 xaaladood waxaa laga helay gobolka Banaadir 5 xaaladood waxaa laga helay Puntland tirada guud ee dadka laga helay waa 436 5 qof ayaa u dhimatay tirada guud ee dhimashada waxay noqonaysaa 23 tirada guud ee bogsatay wali waxay ku taagan tahay 10 waa xaaladda guud waxaan rabaa inaan mar labaad dul maro ka hortagga inuu aad muhiim u yahay in laga taxadaro cudurkan sidii loo xakameyn lahaa waa waajibna wada saaran in lagu dadaalo nadaafadda in la iska ilaaliyo meelaha buuqa iyo dadka badan ay jiraan in marka banaanka loo baxaayo afka la xirto oo maskar in la qaato ay muhiim tahay wixii hadda ka dambeeya aad iyo aad ay khubaraada iyo wasaaradda caafimaadka ugu taliyaan qofka inuu afka xirto baabuurta meelaha ciriiriga la iska ilaaliyo meelaha la isugu imaan karo oo ciriiriga ah la iska ilaaliyo dawladda waxay wadaa dadaal aad u tiro badan maadaama tirada soo kordhayso in la raadiyo isbitaallo kale oo aan martiini ahayn oo lagu daaweeyo haddii alla idmo waxaa xalay la keenay diyaarad Turkiga ku xayirnaa dad badan oo Soomaaliyeed oo xalay lagu guuleystay inay yimaadaan dadkaas waa laga warqabaa waa dad intooda badan soo sameeyay kulligood soo sameeyay isbaarid oo iska soo baaray cudurka coronavirus kadibna la soo qaaday dadkaas guud ahaan koraa laga ogyahay waxaa la hayaa contactigooda wax allaale wixii service adeeg caafimaad ay u baahdaan diyaara loo leeyahay ilaahay naga haaya lacalla haddii loo baahdo in la test gareeyana mar kale waa la test gareyn karaa waxaa kaloo jira dawladda Soomaaliya waxaa soo gaaray in dad badan oo Sacuudiga ku xayiran iyo meelo kale adduunka kamid ah ku xayiran inay isu diyaar gareynayso inay keento oo ay waajib ku tahay in muwaadiniinteena meelaha qaarkood ku xayiran la keeno dadaalka aad u badan yahay diyaaradii shalay timid xoogaa waxay wadaa daawooyin iyo reagents loogu talagalay qalabka wax lagu baaro wali lama furfurin dhalinyaradii ka shaqeynaysa wasaaradda iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha ilaa alaana ku mashquulsan waxaa bilaaban doona birri haddii alla idmo haddii ay macquul noqoto isku aado wax walba waxaa bilaaban doona in xafiiska ra'iisul wasaaraha khubarada WHO ka tirsan iyo wasaaradda caafimaadka ay hogaaminayso in la aadi doono gobolada maamul goboleedyada maamul kastana la tagi doono la soo assess gareyn karo waxyaalaha ka dhiman waxyaalaha ay aan ku kaalmeyn karno wixii qalab oo labka ah ama waxyaalaha PPE la isku qofka bani aadamka ka shaqeynayo isbitaalada ama shaybaarada uu gashan lahaa oo isku taxadari lahaa wax allaale wixii la haayo si loola qaybsado la soo ogaado xaalkooda oo guud ahaan maaragtay laga warqabo oo isku si loo isla socdo haddii alla idmo ilaahay waxaan ka baryaynaa cudurkan aafadiisa inuu naga najeeyo inaan wada dadaalno oo qof walba oo bulshada kamid ah uu wacyigelinta qaybka ka qaato in dadka waaweyn oo cudurrada raaga qaba la ilaaliyo xanaano gooni ah la siiyo in gacmaha mar walba la dhaqo saabuun iyo lagu dhaqo iyo wixii loogu talagalay nadiifiska in meelaha ciriiriga aan la tagin in qofka hadduu dareemo calaamadihii cudurka lagu sheegay inuu raadsado uu wacdo telefoonada toll free-ga oo meel walba ka furan uu wacdo oo uu raadsado wixii caafimaad waxaan ilaahay ka rajaynayaa caafimaad guud inuu siiyo inta cudurka qabta inteena kalena naga